intaan muuqaalka u guda galin in waxaan ka codsan lahayn inaad channelka subscribe saarto waxaan doonaynaa inta aan la gaarin ramadaanta ka hor inaan gaarno 30,000 oo subscribe marka haddii aad subscribe hore u saartay videogan like saar si uu dad kale oo badan u gaaro ay iyaga u saaraan subscribe. sheekadeena maanta waxay ku bilaabanaysaa shan saaxiib ah oo dalxiis u soo aaday buuro baraf ah balse nasiib daro ay ku dhex lumeen buurahaas barafka ah. xilligaas meel walba ay fiiriyaan kaliya waxay arkayeen buuro baraf ah, wax geed ah iyo wax xayawaan ah iyo wax dadan maysan arkeenin. afar iyaga kamid waxay ahaayeen kuwa isla socda halka gabar lagu magacaabayo Rocky ay ahayd mid mar walba iyaga ka dambaysa maadaama ay ahayd mid iyaga ka yar sidoo kalena aad u gaajasnayd maadaama cuntadii ay wateen ay ka dhamaatay. gabadhaas yarta waxay ahayd mid aad u daalan sidoo kalena xanuun aad u daran dareemaysa. si kadis ayay gadaasheeda waxay ka maqashay shanqar. haddii ay soo fiirisay waxay aragtay qof mindi u sawata dhankeeda. markii ay aragtana waa mid kamid ah asxaabtoodii lagu magacaabayay John. wuxuu ahaa mid dhankeeda u soo socday sidoo kalena mindi wato. intiisan hadlinba gabadhii qoorta ayuu ka jaray. wuxuuna bilaabay inuu gabadhii jirkeedii u googooyo gobol gobol una bilaabay inuu cuno sida bahal oo kaleeto. wuxuu ahaa mid ku raaxaysanaya maadaama ay haysay gaajo aad u daran. gaajo darteedna uu sameeyey arrinkan. wejigiisa waxaa buuxiyey dhiig sidoo kale dhulka waxaa aad uga buuxay dhiig aad u tiro badan. saddexdii kale saaxiibadaha kuwa iska socday ay ahaayeen mana aysan dareensaneen. waa uu la socday isaga wuxuuna xilligaas ka dhex waday tiimkooda inuu mid u ugaarsado maadaama aysan iyagu si fiican iskaga warqabin xaaladda jirta awgeed oo ahayd mid aad u daran. xilliyada kamid ah oo ay isku soo hareen isaga iyo saaxiibkiisii ugu dhawaa u dhahay war maxaa kugu dhacay balse gacanta ayuu ka gooyey. saaxiibkiis waxa uu dareemay xanuun aad u daran wuxuuna ku yidhi waa adiga qofka dilay soo ma aan tiimkeena oo idil maxaa kaa khaldan waxaad u dishay inaad cunto iyaga keliya war ma iimaankaad la'dahay waxayuu iimaanka la'aban bugaweyna iimaanka la'dahe. wuxuu bilaabay inuu aad u caayo balse ninkii kale ee John ahaa wuxuu dhahay dhammaantood aniga ayaa baabi'iyey waana cunay adigana waa ku jirtaa kuwaas ayaga ayaadna ka mid tahay. wuxuuna dhahay ma ku deen dooni adiga xataa saaxiibkeedii aad tahay kuma deen dooni. balse saaxiibkiisa ayaa wuxuu yidhi war maxaa kaa khaldan calooshiisla ciyaaraha nagu noqonin niyahow waxaan u soo baxnay dalxiis ee uma soo bixin inuu dilo. hadda gacantii ayay ka goysay tiimkeeni kale intii kalena waa baabi'isay. ninkan wuu ku qayliyey hadalka ayuu ku badiyey balse John wuu ka sii xanaaqay oo keliya wuxuuna damacsanaa inuu hal mar uu ninkan dilo. tooradiisii afka lahayd ayuuna haystay. ninkii John ahaa waa uu sii xanaaqay tooradii ayuu la soo baxay wuxuuna la soo aaday ninkii saaxiibkiis ahaa wuuna ku bilaabay inuu gelgeliyo ilaa uu ka dhintay saaxiibkiis. waa uuna jarjartay wuxuuna ahaa mid waalan sida xayawaanka oo kaletana asxaabtiisii u cunay dhammaantood. wuxuuna ahaa mid cunaya hilibka saaxiibkiisii ugu dhawaa. si kadis ah waxaa hurdada kasoo kacay oo qaylo bilaabayo cunug yar oo lagu magacaabo Axmed oo waxaan ogaanaynaa in dhammaan waxaas oo dhan ay ahaayeen riyo. waxaan u imaanay saaxiibkiisii Cali ah wuxuuna ku dhahayaa riyo maxaa kugu dhacay bal kac maxaad ku qaylinaysaa. Axmed ayaa soo kac wuxuu dhahay war saaxiibiga raali noqo labadan beri aad ayaan u riyoodaa oo aan u qarwaa maadaama aan akhristay buugaag ay ku qoran yihiin dad qalatada iyo bahalada duurjoogta ah markay ugu qaado. wuxuu dhahay saaxiib ay dhaqsi isku diyaariyo kolleejka si aad u aadid. hay'adu dhahay saaxiib wayna soo bixinay isaga iyo asxaabtiisii iyagoona bilaabay inay ka sheekaystaan waxa la ku riyooday sidoo kalena ahaa kuwa ku qosqoslay isaga waxaana ku dheernaniyo waxaas akhrisanaysa iska dhaaf akhrisa laakiin ha u qaadan run. Axmed ayana wuxuu yiri haa saaxiiba way jirtaa wallahi waxaa sada akhriya maskaxdeeda waba la qabsataa baan ma garanayo sababtana. isbuuc kadib waxay ahayd dhalashada saaxiibkoodii Axmed waxayna go'aansadeen inay keen u dhaweyd ay aadaan ay xafladda halkaas ku dhigtaan. waxay soo baxeen waxayna soo aadeen keentii magaalada ka yara baxsanayd. xilligaas waxaa jiray qabow aad u daran waxayna shideen dab keenta dhexdeeda waxayna aad xilligaas habeen waxayna sidoo kale karsanayeen hilib si ay ugu caweeyaan. waxayna bilaabeen inay cabaan cabitaan iyo noocyada kala duwan. markii 6 saac habeenimo la gaarayna waxay bilaabeen inay ka giijiraan sidoo kalena ay wada cunaan waliba ay ku caweeyaan. meeshan waxaa uga taagnay teendho ay rabeen inay habeenkii ku laabtaan sidaas ayuuna ahaa qorshooda oo sidii ayayna sameeyeen oo teendhadoodii ay ku laabteen markii ay dhammaysteen xafladoodii bashaalkoodii oo habeenkii xilli dambe la gaaray. xilli habeenkii saqdhaxasay tahay ayaa wiilkii Axmed ahaa ee xaflad loo dhigayay wuxuu dareemay shanqar indhaha ayuuna soo kala qaaday. haddii uu fiiriyay teendhada albaabkeeda waxa uu arkay wax soo socdo wuxuuna kiciyay saaxiibkiisi ag jiifay wuxuu dhahay warniyow kac warkac kii kale ayaa wuxuu warniyow hurdada naga qasina dhaaf aska jiifnee balse saaxiibkiisi ayaa sii riixay. markastuu baalkaas u soo dhawaaday teendhadana meesha waa ay soo ureysay aad badan ayaa soo galayay. kii kale ayaa soo kacay wuxuu warniyow hurdada mana qasasna banaanka ayayna soo aadeen wayna fiirfiiriyeen banaanka. ninkii kale ee wiilka kale saaxiibada wuxuu yiri waa xayawaan meesha maraya oo kaliya meeshana waa keen xayawaan inay maraan wax weyn ma ahan oona iska sixrooday. balse ninkii Axmed wuxuu arkay in xayawaankan uu leeyahay luga aad u waaweyn luga xayawaanada dabiiciga ah ay leeyihiin. Axmed isku soo laabtay meeshiisa ayuuna iska seexday balse saaxiibkiisii kale Cali ahaa ayaa soo kacay maadaama uu dareemay shanqar. wuxuuna yiri saaxiibkiisa la jiifo ku yiri anigu shanqar ma maqasha waa uu soo kacay wuxuuna hor u soo qaatay biskooladiisii oo ahayd mid umar walba isku ilaalinayay. wuxuuna arkay xayawaan sii cararaya waliba xayawaankaas aad u weyn waa uu yahay wuxuuna waryaha istaag biskoolada ayuu ku qabtay
وأنا قعر وبرصدي وحنا سوق يا أحمد وحنا يري ونيجي عليه عقو آه صاحب وحنا كويري حيوان كاس أوجد أيو برصدي وإستجاب يقدم عرري حيوان سيدنا حم موجودية وحنا وحير كور أيو بحي وهذا دنكاس وحنا بركة مع أورع بس أديكو كل ديسي بركاس وحنا أنيجا ما بقى أنت براحين وبني رعب صدانيجا ووحن أهمت كعب صد حيوان ذي وحياباس فوبيا يعني كخبا حيوان هذا بركة ما أنا أنت براحين وحنا كويري نيجي أحمد هاورني ونمر سنوات فولين مديس كذا صاحب كانوا إن أدنى وحنا أمرنا نحرق عن دوات قصوي هاي كنت أيو حق لي ما أمرنا نقصن وصل بنايو كي كلا يحوس كسجري ونيه هو أديك أدلك أنا حبسنيها إما أسعد كنت ويسور عين وحلا ونيه ونمر سباتين مري من أدنى إلا وإلا ويسوب بحين لبدو وحين سو أدن رنكي يكنت وين سوق لكنت وحين أركز صاحب ودي علي أمر كل منايو سوا كوهاي آموسة وأفكر فرت سارايو وأيابين أين ونحين والمحا خلطنا ينزلين كيس دو في روح وأركي وح عبس بدن وهو أركي وح وحتى حيوانات عادية كوين بني آدم كده كوين وكيس تاجن وحنا دريمو أحمد إنه حنيه وحي وبوقت وآخرين جري وهو أهبال له كيس ودادر سيدو كلين ديسونهين وقدوزن سيد ديك أو كاليتو نلوغا عبسنايو ننكي صاحب كان هاي فليق مركي من حد درادد لوغا يوبقو دعي جارين يو إلمين يو حوس قدري وحنا حميد أدو عبسناي مركي بحيوانكو وصورتو وحنا سو آذين ننكي صاحب كان ها وحنا كبلابين وإندحا ونكبحصدو أحمد أياني يرورني ونكب بسكولة تقولفو بس علي وأودي وحنا كسو حرر بالكي وحنا كتوري بسكولة يا كدعدي أحمد بسكولة يو قاتبون لفة كذا وكعرر ماشي مركبه وكعرري بالكي أيانا تبو بلابي إنو عنو ننكي عليها وحنا بلابي إنو علي كعنو علوشا ونا كسو بحصد وحوال بو على وشيسا مدك على وشيسا أكو جري سوكو وحنا نور راحي سنايا markii uu ka dhamaadana waxa uu soo aaday dhankii iyo cunugii kale ee indhaha xanuuneen ama indhaha uu ka tirtiray markii horeeto wuxuuna bilaabay inuu isagii dib u cuno oo calooshiisana kala soo baxo ninkii Axmed ahaa wuu soo cararay wuxuuna soo aaday dhankii iyo teendada isagoo aad u soo cararay wuxuuna markiiba u soo galay saaxiibkiisii kale ee qolka ku sii jiray wuxuuna u sheegay wax walba wuxuuna yiri maxaa xal amarka maxaa sameynaa sidaas ku baxsan karnaa anaka ninkii Axmed ahaa isagoo oonayay wuxuu yiri wax walba way dhamaadeen mana awoodnina cararno meeshan ayaana ku dhimanayna haddaba inuu ogaataa wuxuuna yiri maxaa khaldan maxaa dhacay saaxiibadan kala aaway wuxuuna yiri saaxiibadan dhammaantood waa la cunay labadeenoo kaliya ayaa haray wuxuuna yiri ninkii kale war saaxiibo xalkeen adiga buugti wax akhrisatay wuxuuna yiri baalkan kaliya wax looga badbaadi karaa waa dabkaas dabka haddii aan ku waabino ama aan ku gubno dabka waa uga badbaadi karnaa laakiin wax kale ugama badbaadi karno marka wuxuu yiri haddii dabka looga badbaadayo ma nooga badbaadisid dabkii ay soo qaateen iridkii teendada ayay la fadhiisteen waxayna markiiba arkeen in baalkii uu ka soo degay geedaha maadaama urkiisu uu aad u soo dhawaaday Axmed ayaana yiri haddii uu urka soo aad u soo dhawaado baalkii ayaa noo soo dhow waxayna arkeen geed hortooda asoo ka soo deganayo diihiisu waxay ahaayeen kuwa ka buuxa dhiig aad u tiro badan sidoo kale wajigiisa wuxuu ahaa mid aad u cabsi badan wuxuu u soo cararay dhankooda wuuna soo aaday balse Axmed wuu ogaa in inuusan baalkan dabka u soo dhawaan karin dabkii ayuuna ku waabiyey balse Axmed wajiga ayaa laga yara xagtay dabkii ayuu ku waabiyey markii horeeto oo ma uu soo gali karin dib ayuuna uga yara baxay wiilkii kale ayaa wuxuu ku yiri biskoolada ku dhufaa maxbadda ku dhufo 3 xabo biskoolada ku jirta ayuuna xabadka u geliyay biskoolada dhulka ayuuna ku dhacay baalkii weynaa markiiba waxay qabadsiiyeen dabkii sidii ayayna ku gubeen markii ay gubeen waxa uu yiri Axmed dhaqso waa inaan ka tagnaa meeshan oo aan ka cararnaa ma sii joogi karno markiiba gaariga ay soo qaateen waa inay soo carareen markii ay dhexda mareen Axmed wuxuu yiri waxaan dareemay waxyaabo aad u duwan caadi ma ii xanuun aad u daran ayaan gudaha ka dareemayaa jirkeygana waxaan dareemayaa in lafayga dhan ay jabayaan oo kaleeto markaas wuxuu yiri maxaa khaldan ay kula tahay wuxuu yiri gaariga bal yiri istaaji meel banaan ah gaariga ay istaajiyeen gaarigana waxaa ka soo degtay ninkii Axmed saaxiibkiis ahaa balse Axmed wuxuu isku bedelay bahal wuxuuna Axmed markii bilaabay inuu cuno saaxiibkiisii isagoo waliba bahal ah halkii uu saaxiibkiis ku cunay oo waxa uu bilaabay inuu saaxiibkiis cuno sidii kuwii saaxiibadiisa hore camal loo cunay waxaana jirtay hal bug oo uusan Axmed akhrinin oo bug ku qornaa oo ahaa inuusan bahalkan si fudud ku dhamaanin qofku xigtana uu qaadayo cudurka halkaas ayna sheekada ku dhamaatay